wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh oo ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dadweynaha naga soo gaaray habeenkan caawa ka soo idinka imanaya TV-ga madaxa banaan ee Rayo warka caawa halka wad diyaar waxa idinku ah wariye Cali Ismaaciil Aare Cali Waaheen warka madaxdiisii xogayaha dawladda hoose degmada Boorama Muumin Xuseen Cumar oo maanta ka hadlay cashuuraha ganacsatada jaadka ee magaalada Boorama roobab daruuro wata oo maanta gallikii dambe ka da'ay deegaamo kamid ah degmada Boorama daawadayaal qodobadaasi waxa ay ka mid yihiin warkeena caawa halkan aan idinku hayno qodobadaasi iyo kuwa kaleba u diyaar galooba warkii oo faahfaahsan xogayaha dawladda hoose Muumin Xuseen Cumar oo maanta ka hadlay cashuuraha dhawaanta uu ku soo rogay gudoomiyaha degmada Boorama ganacsatada jaadka warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya wariye Axmed Bigays iyadoo magaalada Boorama ka taagan yahay khilaaf xooggan oo la xiriira ganacsatada qaadlayaasha magaalada Boorama iyo mas'uuliyiinta degmada Boorama ayaa waxa xal ahaan laga gaadhin walow shirdoocadii qarsoon ka socdaan magaalada Boorama mas'uuliyiinta dawladda hoose magaalada Boorama ku qancinayaan ganacsatada qaadlayaasha inay bixiyaan lacagtaasi cashuuraha lagu soo korogay Muumin Xuseen Cumar waa xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada Boorama mar uu maanta xafiiskiisa kula hadlayay warbixinta kala duwan ee gobolka Awdal waxa uu sheegay inuu lacagtaasi waajibaad in la bixiyo xogayaha hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay hadallo ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama cashuuru horta runtii waxa cashuur la yiraahdaa waa wax dadku ku heshiiyay oo sharci qeexayo cashuurtana sideedaba waxa sameeya ama dejiya laba gole golaha baarlamaanka oo sharci dejina iyo golaha deegaanka oo isna sharci dejintii degmada ah sharciga golayaasha ama ismaamulka gobolada waxa la yiraahdaa xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinku oo xeerka 3 qodobadiisana ay noo fasaxaya inaan cashuur ay goluhu waajibiyaan cashuurta la waajibiyana dadka waa cashuurtii ku noqonaysa wax loogu qabanay haday wada tahay haday iskuul tahay haday caafimaad tahay haday qashin tahay arrinta jaadka markaan dib ugu soo noqdo runtii waa la yar siyaasadiyaan malaynaya laakiin arrintu waxay ahayd cashuur goluhu ansixiyay oo la wada saxeexay oo la isla ogolaaday in laga qaado qofka jaadka keena isagu ee jaadlaha ah ee wadanka soo galiyay ee magaalada ku jaadka keenaya maaha kuwa iibinaya kii keenay hadaan mesela tusaale radiyo baag buu jaadku xiriyo ninba waxa loo keenaa baagaas oo qaybiya kaasi magaalada wuxuu ku soo kordhiyay waliba waa jaadka lagu iibinayo magaalada ka cashuurta ka doonanay ka baxaya ama dhan u dhaafaya kuma jiro kala iibinayay halkan lagu iibinaya wuxuu reebaa qashin waxaan tijaabinay hal maalin baa waxaan kiilo jaada marka laga cuno inta laga cunayo wuxuu reebaa 0.95 gram oo qashina iyo halkan kaga tagaa waxa kale uu hadana inaga qaadaa inaga halka kiilo jaadihiba wuxuu qaadaa $25 buu dib u celiyaa waxaad ka talaabiyaa waxa la weydiiyay baaga 10 kiilo ku jirto ee 2 milyan iyo barka inaga qaadaya galabta ee celinaya Itoobiya geynaya waxa la weydiiyay 5 baaga 2 milyan iyo barka ay ku qiimihiisu yahay inaga noqonaysa ayaa waxaan weydiinay qashinka uu reebayo wax lagaga qaado oo 5 ama 3 ama 4 tiiba dadku aad uga kaceen kamanay kaceen waxaan u maleynayaa in si kale looga dhaadhiciyay waxyaabo kale oo waxa jira in qofka yani cashuur ka hadlaya ama cashuur exaggeration ka sameynaya waxa la yiraahdo wasiirada diiday wasiiradu ma diidin wasiiradu farsamo ka hadashay qaabka loo qaaday ka hadashay wasiiradu cashuur ma diidin wasiiradu way ogolaatay cashuurta waxay ka hadashay farsamo
farsamaduna waxay ahayd halkan maahay halkan ku qaada taasina waa mid sharci ahoo dee qofku wixii magaalada soo gelayaan cashuurta xaq lacsiiska ku leena wixii magaalada dhaafaya anaga waxba kuma lihi dadkuna in laga dhaadhiciyo waa dadkayagii waa dadkaan jecel lahay qaadku sidiisaba horta waa daroogo haddana dee dad baa ku nool cashuur baa dawladda ka soo gasha run ahaantii anaga waxaan jecel lahay inay dadku fahmaan waxa cashuurta la yidhahda golahan deegaanka iyagaa doortay golaha deegaankay doorteenna sharci buu dejiyey sharciguu dejiye waa naxariis waa loo naxariisanaya waxbaan ku qabanaynaa iminka magaaladu weligeed laami may lahayn maanta waxay leedahay 12 kilomitir iyo badh laamiye ah dee iskama imanuun 500 iyo 1000 shilin iyo waxaas laga ururiyey baa lagu keenay marka wallaahi waxaan leeyahay dadka iyaga cashuur diidmadu waa wax xun fawday dalka gelisaa cashuur diidmadu waxay keentaa isku dhacyo dadkuna haddaanay cashuur bixinayn waxba inooma qabsoomayaan mas-uuliyaddeennaa noqonaysa daciif waxqabadkeennaa noqonaya daciif dadka doonaya inay ka faa'iidaystaan ay dadka dhex galaan ee yidhaahdaan waxaan ha bixinin cashuur dee waad arkaysaan waxaan tusi karayaa saxeexyadii golahu saxeexeen qof kasta oo golaha ah anu xukay ahaan qoraal baan ka qoraa hadalkiisaan qoraa qof kasta oo shirka ka soo qayb gala waxaan ka saxeexaa inuu shirkaa joogay waxaan idin tusi karayaa idin hordhigayaa inay wada saxeexeen waxaan markaa anigu hadalkaygu soo gebagabeynaya cashuurtu waa mid dadka ku waajiba mana aha in cashuurta laga dhigo wax waraabo ah dadka iyo shaqaalaha dawladda hoose dadka inaan la isku waraabayn waxaan leeyahay cashuurta walaalayaal waa mid waajiba dadka diidaya ee exaggeration ka sameynaya bedelaya hadalkii wasiirada iyo bedelaya ma garanaysaa sharcigii ee wax kale ka dhigaya dee waxay u baahan tahay dawladdu inay wax ka qabato oo la hubsado qofkani waxaan maqlayay qolo xildhibaanaa waxay yidhaahdeen sharci maaha waxani wuxuu sharci isagu saxeexay qofku hadduu sharci waxa uu sharci ku yahay xildhibaan wuxuu ku yahay waa sharci hadduu xildhibaanadii sharcigii xildhibaan ku ahaa yidhahdo ma jiro deesna ma jiro waxba ma noqonayo marka dadka waxaan u sheegayaa cashuurtu wax weyn maaha waa wax yar waana wax laynigu qabanayo wax dhibaata keeni karayana ma aha wixii qofku ka cabanaya dacwashada xafiiska lala yimaadaa laakiin in propaganda laga sameeyo aniga way adag tahay waxaan hadalkii kusoo gabagabeynaya walaalahay waxaan dadka u sheegaya maanta fursadda kaga faa'iidaysanaya cashuurta wixii waajib ku ah inay iska bixiyaan si iyaguna ay noola xisaabtami karaan qofka taxpayerka ee cashuur bixiyaha ah ayuunbaa la xisaabtami kara dadka hadduuna cashuurba bixintee qofkii lama xisaabtami karayo marka waxaan leeyahay kuwa dadka waryeerinaya ee waxaan sharci darro weeyaan lihina dee ha ka waantoon hadday sharci dartay xafiisyada ha yimaadaan oo ka qanciyaan mas-uuliyiinta ha qanciyaan oo yidhahdaan waxay sharci darro ku tahay ha loo sheego waayo annagu waxaan halkan ku haynaa wax sharciga midayntu waxaa saxeexay golaha baarlamaanka la mariyey guurtidu soo maray madaxweynaha saxeexay sharciga golahana waxaa saxeexay maayarkii baa saxeexay guddigii fulintaa saxeexay waxaa saxeexay iyagii baa saxeexay go-aanka gaadhay ee waxaan samaynayay baa saxeexay ee waxaan waajibiyey haddana haddii la dafirayo dee waxay u baahanaysaa markaa in sharciyadii dib loogu noqdo oo qofkani wuxuu sharciga ku ah hadduu diiday sharci ma ahaanaya isagu qof ma ahaanaya xildhibaan isku soo wada duuba waxaa laga warsugayaa halka uu ku dambayn doono murankan iyo isqabqabsiga u dhexeeya dowladda hoose ee boorama iyo ganacsatada qaadlayaasha ah axmed cawaale cumar axmed bigays radio t v boorama roobab daruuro wata oo maanta gallinkii dambe ka da'ay deegaamo ka mid ah degmada boorama warkaasi oo faahfaahsanna waxaa inoo hayaa wariye cabdirasaaq awliyo iyadoo ay bilaabmeen wakhtiyada jiilaalka ayaa waxaa laga dareemayaa deegaano ay ka mid yihiin gobolada awdal iyo salel curashada daruuraha ee dhibcaha roobka ayaa waxa ay ku soo beegmaan xilliyada jiilaalka magaaladani boorame caasimada labaad ee somalilan abbaara markay saacadda afrikada bari 4 iyo badhkii maraysay waxaa ka curtay roob ay ku tiirsadeen dad iyo dunyaba roobkaasi oo socday saacado kooban ayaa waxaa ka dareemaysay roobkaasi oo xidhay gaadiidka kala duwan ee ka kala dhex goosha magaaladani boorame caasimada gobolka awdal
lagu soo waramayaa in xaaladda gobolada Togdheer iyo Saaxil haatan ay soo food saartay abaaro ba'an. cabdirasaaq xaaji cumar miicaad cabdirasaaq qawliyo wararka telefishinka madaxa bannaan ee Rayo Boorama. halkee ayay ku dambeeyeen mas'uuliyiintii xafiisyada maamulka ee gobolka Awdal? faladaasi waxa inoo haya wariye ayaan la Saciid. muddo ku dhow wax bil ah waxa xidhan xafiisyada maamulka gobolka Awdal. afaaladan waxaynu ku eegaynaa xafiisyada mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Awdal. dhawaan ayay ahayd markii gudoomiye Shiine oo siyaasiyiinta Soomaaliland ku tilmaamaan in uu yahay mas'uul aan iskaba xil saarin mas'uuliyadda xafiisyada dawladda ee loo dhiibo. habsami socodka shaqeeya xafiisyada maamulka gobolka Awdal ayaa laga dayrinayaa kadib markii guud ahaanba xafiisyada mas'uuliyiinta gobolka Awdal ee gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha dhammaan xafiisyadaasi albaabka loo xidhay xarunta gobolka Awdal, kuwaasoo inta badan ayna ka socon wax shaqo maalmeed ah. lama garan karayo sababta dhabta ah ee ay u xidhmeen xafiisyada heer gobol ee noqdeen kuwo inta badan bulshada gobolka Awdal ka quusteen shaqo maalmeedkii loogu talagalay heer gobol. saddexda mas'uul ee ugu sarreeya xafiisyadaasi ayaa ka maqan badiyaaba xafiisyadaasi. gudoomiyaha ku cusub xafiiska maamulka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo muddo kooban haya xilka xafiiska gobolka Awdal. mas'uulkan ayaan weli fadhiisan kursiga xafiiska maamulka gobolka Awdal. Shiine ayaa lagu soo waramayaa in uu nasasho iyo dalxiis u joogo dalka dibadiisa, khaasatan dalka Britain. dadka daneeya horumarka gobolka Awdal ayaa waxay ku tilmaameen in mas'uulkani uu qaatay tallaabadii iyo dariiqii looga bartay gudoomiyihii hore ee gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayir ee looga bartay socdaalka badan iyo kala gudbinta fariimaha togan iyo kuwa taban ee la xidhiidha dalka gudihiisa iyo dibadiisa. reer Awdal waxaan kula dardaarmayaa anigu maanta reer Awdal ka mid baan aqoon iguma dhinna waynu isnaqaan. anigu maanta haddii la yidhaha ka wanaagsan soo saarna waan soo saari lahaa, ka xun haddii la yidhaha soo saarna waan soo saari lahaa. waxaan leeyahay inta kuugu soo horraysaa inta ugu wanaagsan maaha. la soco anigu waxaan leeyahay intaasi aqoona faraha noqoto. gudoomiye Shiine ayaa ka gaabiyay waqtigii uu kala baran lahaa baylahda shaqo iyo baylahda ka jirta guud ahaanba gobolka Awdal si uu u buuxiyo godolooyinka waajibkiisa la xidhiidha laamaha xafiiska gobolka Awdal. ka maqnaashaha xafiiska gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa laga dhex dareemayaa bulshada dhexdooda. Axmed Diiriye Cabdullaahi Dalxiis waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal kaasi oo muddo ku dhow 2 sano haya xilka xafiiska gudoomiye ku-xigeenka ee gobolka Awdal. waxaa mas'uulkan lagu tilmaami karaa in uu yahay wiil dhalinyaro ah oo aan u carbisnayn shaqo dawladeed isla markaana aan lahayn fagaara joog iyo aftahanimo sida gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Cabdinuur Sugaal. gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeenka u noqo aabbo siyaasadda aabbo u noqo waa inaya hag baan ku leeyahay wada fiican lama. gudoomiye ku-xigeenkana waxaan leeyahay waar ku-xigeenka samirkaa lagu bartaay samirow. walow hadda gudoomiye Shiine ka maqan yahay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka Axmed Diiriye Cabdullaahi lama garanayo sida uu u fuliyo waajibkiisa shaqo ee ku jira gobolka Awdal, iyadoo hadda magaalada Boorama ka taagan tahay khilaaf murugsan ee u dhaxeeya ganacsatada qaadlayaasha magaalada Boorama iyo dawladda hoose ee degmada Boorama, taasoo sababtay in xaalad ammaan ee degmada Boorama faraha ka baxdo. taasoo maqnaashaha doorkiisa loo tirinayo ku-xigeenka gobolka Awdal.
waxaana loo aanaynayaa awoodda sharci ee guddoomiyaha degmada boorama maxamed xuseen maydhana uu gacantiisa ku qaaday si uu u fuliyo cashuuraha lagu soo rogay ganacsatada qaadka fursadan uu ka helay habacsanaanta shaqe ee guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal iyadoo uu si cad uga muuqata xaaladda adag ee ka taagan degmada boorama xoghayaha gobolka awdal asad cabdi jaamac waa mas-uul xubin firfircoon oo dhalinyaro ah kaasi oo inta badan howl maalmeedkiisa shaqo u ahaa mid joogta hase ahaatee waxaa baryahan dambe laga dayrinayaa xagaldaac shaqo oo ku timaday xafiiskiisa walow xoghaya asad cabdi jaamac lagu tirinayay muddadii uu xafiiska joogay guddoomiyihii hore ee gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax mas-uul ku sugnaa dadaal iyo dhiiranaan balse baryahan dambe lagu arkayo dhaqanno ka duwan kuwii horey looga bartay xoghaya asad cabdi jaamac lama hayo sababaha ilaa iminka uu soo xaadir laayahay xafiiskiisa oo baylah badani ka muuqato waana mas-uul balse asad ayaa lagu tilmaamaa mas-uul ku xaragooda mas-uuliyaddiisa aanse fulin waajibkiisa waxa uu leeyahay fagaaro joog balse marka uu waayo la xisaabtan waana midda hadda la jaanqaadaysa isbedelada gobolka awdal ku yimid maqnaashaha mas-uuliyaddaasi waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta kale ee gobolka awdal ay noqoto dhinacyadii kala duwanaa ee dowladda ama bulshada ururadii ama cid kasta oonu aragnay inay hawshaasi wax ka qaban karto kulley taladiinu muhiim haddii wax lagu daraayo guddidu waxay ka koobnaan doontaa 3 qof 3 qof ugu horeyn guddida guddoomiye waxa uu noqon doonaa barsaab ku-xigeenka axmed deeri cabdilaahi faalladii aan ku eegaynay xafiisyada mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka awdal halkaasi ay noo joogto waxaa soo diyaariyey wariye axmed diiriye ciltire anyaala siciid cabdi raya t v magaalada boorama musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucud jamaal cali xuseen oo maanta daaha ka rogay markii ugu horeysay jagada madaxweyne ku-xigeen in la siinayo amaba loo hibeeyey gobolada bariga shirkoodan jaraa'id ee sida wada jirka ugu qabteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee ucid ku leeyahay magaalada hargeysa musharaxa xisbigaasi aqoon-yahan jamaal cali xuseen iyo xubno kale oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbigaasi ayaa waxay si wada jira u shaaciyeen in jagada madaxweyne ku-xigeen oo bannaaneed muddooyinkii u dambeysay ay ku buuxin doonaan mas-uul ka socda gobolada bariga somalilan iyadoo markii ugu horeysay uu noqonayo mas-uul ka soo jeeda gobolada bariga iskuna soo taago jagada madaxweyne ku-xigeen ee dalka annagoo ka qayb qaadanayna madaxweynuhu baaqii u diray ee nabadeynta iyo isdhexgalka iyo in dadka reer shacabka somalilan la isu soo dhaweeyo in dadka inta badan mansabka ku-xigeenka ah madaxweyne ku-xigeenka ama musharaxa madaxweyne ku-xigeenku inta badan uu ka imin jiray gobolada galbeedka ee somalilan waxaan doonayna inaan ugu bishaarayno in xisbiga ucud gaar ahaan qofka ii noqon doono musharaxu ku-xigeenkaygu aan doorkan eegayno in noqdo qof ka soo jeeda gobolada bariga ee somalilan taasi waxa weeyaan waxay u baahan tahay calool adeyg waxay u baahan tahay in wax cusub dadka loo jiheeyo dadkeenu inta badan hal meelunbaa la qabsadaayo oo taasunbaa lagu wada daba fiila taasi micnaheedu maaha in aan anagu ilownay ama aananu ahmiyad siinaynin dadka galbeedka ee walaalaha iyaga ee shacabka somalilan aada iyo aad baan u jecel lahay dadka gobolada awdal iyo selal iyo degan ee galbeedka somalilan laakiin saami qaybsiga waxaanu sameynaynaa bal doorkan maadaama labada xisbi kaleeto labada xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani dadka musharaxiinta uga tartamaya ay yihiin dad ka soo jeeda gobolada galbeedka bal inaan doorkan bedelno waad ogtihiin oo aniga musharax ku-xigeenkaygii hore wuxuu ahaa cabdirashiid xasan mataan oo ka soo jeeday gobolada galbeedka hore aan u dooranay laakiin cabdirashiid waa kii isagu markii khilaafkii xisbigu uu sii socday u adkeysan waayey ee ka diga rogtay ee xilkaasi isagu iska casilay maadaama uu xilkii banaanaaday waxaan u aragnay fursad soo baxday inay tahay in aanu jecel lahay inaan doorkan
maadaama dadkii gobolada barigu ay imika usoo jeesteen dhinaca somalilan maadaama madaxweynuhu uu shir ku baaqay la isugu soo dhaweynayo oo bisha aakhirkeeda ah maxay ahayd shacabka somalilan gaar ahaan bariga in aanu bal anagu decision adag oo xoog leh oo dadkii siyaasiyiinta ee somalilan ay qaadan kari weeyeen inaan anagu qaato iyo shacabka iyo xisbiga cudba shirkii maxkamadda somalilan inagu xukuntay ee aan shirweynaha caadiga ahayn ee heshiisku dhammaystirmo ayaa waxaa ka dambayn doona shir golo dhexa ah oo loo qaban doono in musharax ku-xigeenka oo keliya ta maadaama anigu de hore golihii dhexe oo ii doortay maxkamadduna ay xaqiijisay in aan shir dambe oo golo dhexe aanan u baahnayn in musharax ku-xigeenka loo qaban doono shir golo dhexa ah dhanka kale musharax jamaal cali xuseen ayaa sheegay in musharaxnimadani ayna ku koobnayn gobolada bariga balse tartan lala geli karo alayno oo aan u badino labada cidhif ee somalilan haddii markaa ay taayadaba noqoto oo ay markaa dee aynu xukunkaa ku guulaysano waxay noqon doontaa markaasi in mansabka kale ee saddexaad ugu sarreeya somalilan oo ka baarlamaanka ah dee markaa inaan la doonano gobolada galbeedka somalilan ee guddoomiyaha baarlamaanka waxaa wanaagsan dee in shaashadii siyaasadda in layska dhex arko weli somalilan maynaan gaadhin xeerkii aynu odhanaynay hebel iyo hebel iyo hebel ayaa dalka ugu karti badan hadday ilmaadeer yihiin sidoo kale waxa uu markii ugu horeysay musharax jamaal cali xuseen ka hadlay jawaabtii ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee ku aadanayd khilaafka xisbiga uu ciid mahadsan yahay guddoomiyaha baarlamaanku isla markaana guddoomiyaha xisbiga wadani inuu ka hadlo oo uu ka hadlo de arrimaha jira waanu jeclaan intaa in ka horeysa oo ka hadlo laakiin waa ku mahadsan yahay welina waxaan u sheegayaa dee weli horta arrinkaygii waa shir baa noo dhiman oo shirkaasu de insha allah ku dhammaan fallo ku saabsan isbarbar dhigga golihii deegaanka ee hore iyo golaha deegaanka ee hadda xilligiisu yahay gabagabada ee degmada boorama falladaasina waxaa inoo hayaa wariye muxyidiin golayaasha deegaanka ee dalka jamhuuriyadda somalilan ayaa ugu horreyntii waxaa la doortay 2015 iyadoo hadda golayaasha deegaanka dalku ay yihiin golihii labaad kuwaasi oo xilka hayay muddo dhowr sana isla markaana muddo xileedkoodu uu yahay mid ku dhow gabagabo golayaasha deegaanka ee hadda waqtigooda dhamaysanaya ayaa waxa ay kaga duwan yihiin golihii ka horeeyay halka golihii hore uu ku soo baxay liiska xisbiga hase ahaatee golaha hadda xilkiisa haya ayaa ah mid ku yimiday codka dadweynaha inkasta oo markaasi bulshadu ay filayeen in golayaasha deegaanka ee hadda jooga ay ka waxqabad badnaan doonaan balse ma aysan dhicin taasi dhinaca kale marka la eegayo golihii hore ayaa waxay u badnaayeen dad waayeel ah sidoo kalena lagu tilmaamo kuwa ayaa arag ahaa halka golaha xilligani ay yihiin kuwa wada dhalinyaro ah balse aynu eegno saameynta waxqabad iyo horumarineed iyo isbarbardhigga labadaasi gole golihii hore degmada boorama ayaa waxaa lagu xasuustaa dhinacyada waxqabadka ee laga hirgeliyay degmada ee la xidhiidha horumarinta adeegyada bulshada iyo kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha waxaana degmada laga sameeyey xarumo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho sidoo kalena waxaa bartamaha magaalada laga hirgeliyey dhismayaasha jidadka wadooyinka laamiyada ah sidoo kalena waxaa golayaashaasi xilligoodii bilaabmay aasaaska shirkadaha horumarineed ee bulshada sida shaaba sarda horseed iyo dhismaha kawaanka xoolaha golahan hadda xilkiisu uu yahay mid ku dhow gabagabada ayaa dadka inta badan siyaasadda adoroosa ay ku tilmaamaan mid gabay xilkiisa waxaana inta badan loo tiriyaa mashaariicaha horumarineed ee ka socday degmada ay albaabada u laabeen sida GBLG-ga iyo kuwa kale ee la halmaala kuwaasi oo ku fashilmay dhammaystirka mashaariicaha horumarineed ee ay ka soo gaadheen golihii ka horeeyey minaarkii malaa ugu horeeyey intii xildhibaanada la soo doortay ama aqoon isweydaarsa u furto aad baan idinku hambalyeelayaa ama qaabilsanaada mashruuc gaar aha ku waajahnaadeen oo kulley anugu in badan baa layga maqlay anigoo la macaamaayarka in loo furo siminaar way fiican tahay oo libala bal runtii iminka waxa kaala waxyaabo badan oo waajib u lahaydeen oo qofku hadduu tiisii ka soo bixi waayey mid kalena waxba kama sheegi karo anugu kale oo aragtideeda waxa weeyaan magaalaad soo dooratay waa magaalada keliya ee dalka oo dhan aan laga gudbinin ilaa maanta miisaaniyadda yaala mas-uuliyadda isu kaaleediinu waa dhib isu kaaleeda waxbaynu ereynaayo
laftigeedu waa dhib isu kaalay waxbaynu dhisaynaayo waa dhib isu kaalay shaqadii aad ahaydeen baa idiin qabya oo dalkii u taagan yahay waa laydinka joojinaya mushaar baan haddeeda soojinay mushaharkii shaqaalaha wallaahi haddaan wiigan la saxeexin mushahar damboo la qaadanayaana ma jiro xildhibaanadaana u bahda go-aanna waa laydinka qaadanaya maca maayarka maca xildhibaanada kulligii waa idiin sheegaya wasiirka halkaan musla gaadhi waxa weeyaan dalka ilaba iyo tuulooyinkii yaryaraa waa la wada keenay miisaaniyaddii degmadii boolame miisaaniyaddeedii waxaa haystaa xildhibaan waxa weeyaan xildhibaan xumadu ma haysato halkan oo keliya waddanka oo dhan baa wada xildhibaano xun haddii anuga dadweynaha ka mid ah ama afkooda israado ku hadal xildhibaanada waddanka la doortay oo dhan ee degaanada lama mahadina kuwii horaa ka fiican waayo waayeel baabay u badnaa inuu rag waaweyn isu yimaado laakiin nimanaan calaan ogolayn nimanaan inay isu yimaadaan aan ogolayn niman isu tunaasil aan lahayn nimanaan shaqadoodii garanayn niman nin waliba uu isagu amir yahay man yasuuq alxiyaa si kastiba ha ahaatee golaha deegaanka ee waqti xaadirkan ayaa bulshadii soo dooratay ay ku eedeeyaan in ay horumarkii degmada ku ilaaween isqaqabsi dhexdeeda oo aan lahayn dhammaasho iyo sidoo kale mishaar kordhin iyo cashuur kordhin محيدين عبد الله محمود تلفزيون مدح بناني ريا تي في مقالة بورما iyadoo xaalad abaareed lagaga dhawaaqay gobolka saaxil ayaa mas'uuliyiinta gobolkaasi maanta ay socdaal ku tageen deegaamo hoos yimaada gobolka saaxil oo laga dayrinayo abaaraha gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada Berbera maarayo xigeenka degmada magaalada Berbera iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera ee laga soo doortay xeebaha bari sidoo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa maanta gaarisay u soo indheeyaan deegaamo laga soo sheegay abaaro baahsan ay ku leedeen xoolo aad u tiro badan deegaamadaas abaaruhu saameeyay waxaa kamid ahaa deegaamo ay kamid yihiin xagal laasciidle eel helay hididale iyo raaribuur iyo waliba deegaano kale oo aad u tiro badan deegaamadaas waxaa ka jira abaaro aad u baahsan oo ay ka deeriyeen dadka xoolo-dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaamadaasi waxaana maamulka gobolka saaxil si wada jira u dhagax dhigeen iskuul dugsi sare ah oo ay yeelan doonto degmada laasciidle iyadoo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka saaxil deegaamadaasi gaarsiiyey qalab waxbarasho oo aad u tiro badan odayaasha deegaamadaasi iyo mas-uuliyiinta gobolka saaxil hadaladoodii waxaa ka mid ahaa xoolaha abaar laxaad leh ayaa qabsatay xanuunna waa u dheeryahay dad badan oo xooluhu gabaabsi ka jiraan ayaa jira dhammaan waxa uu ka sinmay sayladda wuu daayay xoolaha noole xagga gurmadka dadka waxa weeyaan waxaana daba socdaa raashin baa jira raashin badan baa soo socda wax badan baa la qaban doonaa wiigan gudihiisa insha allahu tacaala isbeddel weyn oo xagga maaragtay wax qabadkaa baa dadku heli doonaan warbixinta intaa ka sii fog waxaad isiin doonaa maareeyaha tacaala ilaahay aan barino ilaahay dhibka haynaga kor qaado xukuumad ahaanna warbixintaa waannu gudbinaynaa kollayba dawladduna waxaannu ka rajayn doonnaa iyo hay-adaha caalamiga wixii arrimaha laga qaban karo in laga qabto
dhammaan waxay u marayaan baahiyaha ka jira deegaanka ee abaaraha iyo xanuumada dadka ku dhaca intaba ay jiraan si xoogaal ugu noqdaan warbixintii aan u geynay maanta dhawada safarka halkan aanu maraynay waxaanu ku soo helnay nasiib inaanu bara saabkii iyo maayirkii iyo maareeyihii iyo xoghayihii wixii iyagoo wada socda ina wixii aanu sheegaynay dee nala soo arkaan gaadhayo gumbur booceed iyo meesha laga dhabarajiic dee xalay baanu joognay waxaanu ka daweynay jareecaanu ka daweynay in ilaahay subxaana watacaala isagaa naga dulqaadaya wixii dhibaatooyina jiree wixii dhibaatayda haysta inaan waxna idila aragno wixii aan qaban karnana aanu ka qabanno marka ugu horraysa dee waa in lagu samraa waxa ilaahay subxaana watacaala u keenay dad muslimiinay nahay ilaahay isagaa marna abaarta keena marna nimcada keenaa marka mid walba waa inaan ku samirnaa arrinta aan maanta u soconno waa abaaraha ka jira waddanka oo dhan gaar uunu ma aha magaalada gobolka saaxil ama gaar ahaan degmada berbera gaaru ma aha somalilan oo dhan way ka jiraan abaaruhu horta raashin iyo gurmad waxuu ku filnaan karo bili'aadan maaha bili'aadan waxa dhargiya gacantaa ilaahay naga dulqaado roob la'aanta ilaahay madarka khayr qabay noo shubo waa maxamed kacsa tv-ga universal magaalada berbera daawadayaal qodobada wararka caalamka aan idinka haynana waxaa ka mid ah maamulka dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen ciidamo loo daadgureynayo qaybaha dalka oo dhan taas oo ka qayb qaadanaysa xaaladda degdega ah ee dawladdu ku dhawaaqday boqolaal qof ayaa ku dhimatay isku soo baxyada ballaaran ee ka socda dalka Itoobiya dibadbaxyada iyo qalalasaha ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa ay ka dhacayaan gobolada ay degaan Oromada iyo Maxaarada labadaasi qowmiyadood ayaa ah kuwa ugu badan dalka Itoobiya oo ka dacwoonaya siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan in la faquuqay doodii u dhaxaysay musharaxiinta sida adag isaga soo horjeeda ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa si toos ah looga daawanayay TV-yada caalamka. Donald Trump ayaa la weydiiyay muuqaal laga duubay oo ku saabsan isaga oo ku gafaya dumarka. Waxa uu sheegay inuusan arrintaasi ku faraxsanayn uuna aad uga xun yahay falkaasi oo dhacay ku dhawaad 10 sano ka hor, laakiin waxa uu isku difaacay in hadalkaasi uu ahaa wada sheekaysi gaar ah. Waxa uu ku adkaysanayaa in dumarka uu xushmeeyo sayga Hillary Clinton ayuu ku eedeeyay inuu isagu ka daran yahay Donald Trump, isla markaana uu aflagaado xun u geystay dumarka. Hillary Clinton ayaa ku sheegtay in muuqaalkaasi uu muujinayo in Donald Trump uusan u qalmin inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka. Waxay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin muslimiinta Mareykanka, dadka madow, xaaladda dalalka colaaduhu ay ka jiraan sida Suuriya iyo arrimaha caafimaadka ee waddanka Mareykanka. hay-adda safka hore kaga jirta daryeelka qaxootiga caalamiga ah ee NRC ayaa sheegtay in sida khasabka ee Kenya ay ugu celinayso dadka degan xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida ay tahay arrin xadgudub ku ah sharciga caalamka. maamulka Kenya ayaa amar ku bixiyay in la xidho xerada Dadaab oo in ka badan 280 kun oo qaxooti Soomaaliyihi ku nool yihiin. xogayaha guud ee hay-adda NRC Jan Egeland ayaa ku baaqay in muddada kama dambaysta ee dadkan loo qabtay laga noqdo maadaama ay keenayso dib u noqosho habqan iyo fawda. waxaanu intaa ku daray sida ka muuqata xaaladda aanu ku soo aragnay meesha arrintu ma aha mid ikhtiyaarka dadka ku xidhan oo ay ku niyadsan yihiin oo ay ku badbaadayaan. NRC waxay sheegtay in qaxootiga ku noqonaya Soomaaliya aanay helin ilaalo ku filan. bishii August ayaa 47% Soomaalida qaxootiga ee Dadaab ku jira ay sheegeen inaanay doonayn inay dib ugu noqdaan. sababta ugu weyn ee ay sheegayaan ay ahayd nabadgelyo darrada ka jirta Soomaaliya. Neil Turner oo ah madaxa xafiiska NRC ee Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in habka dib u celinta aan dadka loogu raraynin xeryaha barakacayaasha ee dalka gudihiisa ku yaala iyo in qaxooti aan la diiwaan gelin ku soo noqdaan Kenya. tirada Soomaalida jilicsan ee loo qorsheeyay inay noqdaan aad bay uga fara badan yihiin. waxyaabaha adeega ay looga diyaariyay Soomaaliya gudaheeda ayuu hadalkiisa ku sii daray. xerada Dadaab ayaa waxa la furay sanadkii 1991 si ay hoy ugu noqoto qoysaskii ka soo qaxayay colaadda Soomaaliya. dadka qaarkoodna ilaa maalintaas sidii bay ugu noolaayeen muddo ka badan 20 sanadood. qarax
ayaa maanta oo isniina ka dhacay meel u dhow suuq bacaad magaalada muqdisho qaraxa ayaa ka dhashay gaari bam lagu soo xiray gaariga oo loo badinayo in meel kale laga hagaayay bamka ku xiran xalane ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa kuwaas oo ahaa dad shacab ah oo ku dhawaaday gaariga la qabtay darawalkii gaariga ayaa ku jira gacanta booliska waxaana la weydiinayaa su'aalo suuq bacaad oo ku yaala degmada Yaaqshid ayaa ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho marka laga yimaado suuqa Bakaaraha daawadayaal guud ahaanba intaasi waxay noogu dhan war wixii dalka iyo adduunweynaha naga soo gaadhay oo aad nooga barateen xiliyadan inaan idinka soo baahino TV-ga madaxa bannaan ee Rayo waa aniga oo ah Cali Ismaaciil Aare Cali Waheen iyo bahda Rayo TV oo idle habeen wanaagsan daawadayaal